kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 28 bisha 7 sanada 2019 inta badan warkayaga maanta waxaynu ku eegaynaa qodobo ku saabsan warbixino la xiriira arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha qoyska haddaba qodobada aynu ku soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona haweeney markaasi oo la guursaday oo ninkeeda ka badbaadisay volcano uu ku dhacay sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa inta uu barnaamijka yaga socdo ma kufsi baa hadii qof dumar ah ay nin xoogto dhinaca kalena dal carbeed oo ogolaaday kaniini kordhiya dareenka haweenka sidoo kalena hadii aad maqli jirteen hebel waxa lagu dhuftay xabad oo waa uu dhintay markan wiil dhalinyaro oo jecel awgiisun u cabay ugu dhintay deegaana ka tirsan dalka Soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa waa qiso xanuun badan oo ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo gabar uu jeclaaday dartiisuna u cabay kadibna uu geeriyooday qodobadaasi qodobo kale oo aad u xiiso badan oo arrimaha nolosha ku saabsan ayaad maqli doontaa balse markan haweeney markaasi uu la guursaday ayaa ninkeeda ka badbaadisay volcano uu ku dhacay nin dhawaan aqal galay ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala wadanka Mareykanka kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray volcano uu ku dhacay xilli uu ku jiray bishii malabka waxaana soo badbaadisay xaaskiisa Kalai Castian ayaa madaxu dilaacay mar uu fuulayay buur ku taala jasiiradda Caribbean-ka ee St Kitts xaaskiisa Aksemia ayaa durbadiiba hoos u soo booday waxa ay ka caawisay inuu banaanka u soo baxo garabka ayay ka soo gashay xilli uu hunqaacayay xanuun daranna uu hayay maadaama ay ka soo dhaadhacayeen 3.2 kilomitir meel u jirta dhuldhaca buurta waa haweeney la yaab leh ayuu yiri Mr Castian kadib markii diyaarad lagu geeyay Florida inay isoo qaado oo ay iga soo dejiso buur inta uu dhirirkeeda la egyahay xilli aan la istaagi karin ayaa ah wax cajiib ah oo mucjiso oo kale ah waxa uu u sheegay warbaahinta CBS TV ninkan waxa uu buurta ka dhacay 18 July maalmo kadib markii arooska isaga iyo xaaskiisa uu ka dhacay Crawfordsville ee gobolka Indian ee wadanka Mareykanka halkaas oo ay ka soo jeedaan kadib markii uu gaaro halka ugu sareysa ee buurta Mr Lwengeba ayuu Mr Castian waxa uu sheegay inuu doonayo inuu hoos ugu dhaadhaco volcano-da si uu dhow ugu daawado holaca ka baxaya hoos ayay volcano-da igu jirtay anigana waxaan ka cabsadaa jooga sare ayay tiri Mr Castian oo sharaxaysay go'aankeeda ah inay dhinaca sare ku sugto ninkeeda waxaan maqlay qeylo iyo wax u eg wax weyn oo buurta ka sii dhaadhacaya kadib markii ay maqashay isagoo qaylinaya oo dalbanaya gurmad degdeg ah ay hoos u aaday waxaanay markiiba aragtay taleefankiisa gacanta kadibna isaga oo dhulka jiifa oo madaxiisa uu dhiig ka qubanayo markii ay ogaadeen inaysan jirin cid kale oo ay gacan ka heli karaan isla markaana taleefankii uusan shaqaynaynin ay go'aansadeen inay hoos u daadegaan waxaana ay ku qaadatay muddo 3 saac inay dhulka gaaraan ilaa iyo $30,000 ayaa la ururiyay si lamaanahani ay u kireystaan diyaarad qaas ah oo Kastana loo geeyay isbitaal ku yaala gobolka Florida dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in Kastana ay maskaxda iyo laf dhabartaba dilaaceen oo dheecaan uu ka wada sanka mucjisay ahayd in inta karaankiisa ahi uu is caawiyo marka loo eego halista dhaawacyada ku yaala ayay tiri Mr Castian oo la hadashay jariiradda Indianapolis Star barta Facebook ayuu Castana ku qoray dhab ahaantii waa arin la yaab leh mahadi waxay u sugnaatay alla oo iga caawiyay in dhaawacigi uusan inta ka halis badnaanin markana warbixin kale oo ka xiiso badan ayaynu eegaynaa ma kufsi baa hadii qof dumar ahi nin xoogto waa runtii warbixin aad u cajiib ah ayna hoos u daadegno digniin waxa suuragal ah in akhristayaashu qaar ay dhibsadaan warbixintan marka nin uu xoogo qof dumar ah isagoo fasax ka haysan waa kufsi balse ka waran marka qofku dumar ahi ay xoogto nin dalal badan sida Britain sharci ahaan taasi kufsi ma aha balse cilmi baaris cusub ayaa ku talinaysa in sharciga lagu qoro in labada dhacda ay isku mid yihiin Dr Sofian Ware oo ka tirsan kuliyadda sharciga ee jaamacadda Lancaster ayaa soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan galmada qasabka ah waxaana ay wareysatay in ka badan 200 oo qof oo rag ah wixii ka soo baxay baaritaankeeda ayaa la baahiyay isbuucan waxaana inta badan lagu saleeyay waraysiyo ay qof uga qaaday 30 nin muddadii u dhaxaysay May 2018 ilaa iyo July 2019 waxay daaha ka rogtay faahfaahinta dhameystiran oo la xiriirta in qabsida ay dhacdo ayna saameyn yeelato iyo sida nidaamka cadaaladda ugu jawaabo
waxaa la qariyay magacyada dhammaan dadka qaybta ka ahaa baaritaankan balse mid ka mid ahi waxaan magaciisa lagu bedelay John waxa uu sheegay in markii ugu horeysay uu dareemay in dhibaato nafeed ay u geysatay xaaskiisa kadib markii uu ku arkay dhowr dhacdo oo la yaab leh waxaana uu geeyay isbitaal dhowr saacadood kadib waxaa loo sheegay in dhibaato maskaxda ay jiri karto 6 bilood kadib nafteeda dhibaato uma aysan geysan balse waxay dagaal ku bilowday John fadhiga ayaan joogay jikada ayay ka soo baxday feer ayayna igu dhufatay sanka wayna qososhay ayuu yiri John dhibaatada joogta ayay noqotay waxay daawo ka soo qaadan jirtay isbitaalka ayuu yiri John la talin ayaa loo sameeyay waxaana loo diray dhakhtar cilmi nafsi balse ma aysan tagin xilligii ballanta dhakhtarka marka ay guriga ku soo noqoto oo shaqada ay ka timaado way i xoogi jirtay markasta ayuu yiri waxay gaartay xaalad xun ilaa aan arkay anigoo ka baqaya marka ay shaqada ka timaado xilli waxaa jirtay marka ay John subaxii soo toosto uu arkay isagoo ku xiran sariirta kadib waxay bilowday in madaxa ay uga garaacdo sameecad weyn oo sariirta dhankeeda tiilay waxaana ay mariyo ku xirtay lugihiisa waxaana ku qasabtay inuu u galmoodo maadaama uu baqayo inuu dareemayo xanuun John waa uu awoodi waayay taa kadib garaacidii ay ku sii waday waxaana ay 30 daqiiqo ka tagtay isagoo sariirta ku xiran markii ay soo noqotay ay sariirta ka furtay muddo kadib way diiday inay ka hadasho wixii dhacay in badan kama soo wareegan waxay qaaday waxaana ay yareysay rabshada balse markii ay dhashay kadib John waxa uu habeenimo isku arkay isagoo sariirta ku xiran mar kale wuxuu yiri waxay igu qasbaysay inaan liqo kaniiniga dareenka kiciya waxa kale oo aan sameyn karin ma jiro ayuu sheegay kadib waxaan aaday suuliga waxaan iska hoos fariistay shaawarka xoogaa kadib waxaan aaday hoos waxa ugu horeeyay ay igu tiri wuxuu ahaa maxaa lagu cashaynayaa markii John uu damcay inuu dadka kale uga sheekeeyo wuxuu la kulmay aaminad la'aan sida uu sheegay waxay dadka i weydiiyeen sababtaan guriga uga bixin haddaba waxa uu ahaa gurigii aan caruurtayda u iibin lahaa dhanka dhaqaalahana waxaan u xirxirnaa xiriirkaasi ayuu yiri waxyaabaha uu sheegay John waxa sidoo kale la kulmay ragga kale ee la wareysay sida ay sheegtay Dr. Ware mid kamid ah arimaha la ogaaday waxa kamid ah xadgudubka iyo galmada qasabka balse waxay si guud diiradda u saartay rag iyo dumar arintaasi waxaana aasaas u ah hal qodob oo u baahan waxaana xadgudub guryaha ku dhaca ee dadka banaanka aysan ogeyn markana dal carabeed oo ogolaaday kaniiniga kordhiya dareenka haweenka iyadoo dalka Masar uu noqonayo dalkii ugu horeeyay ee Carabta ee meelmariya soo saaridda iyo ka ganacsiga dawada kordhisa dareenka haweenka ayaa wariyaha BBC-da Sally Nebel waxay u kurgashay in dawadaasi ay soo ku leedahay dalkaasi shacabkiisuna dhaqan ahaan uu ku dhaqan yahay waxaan dareemay dawaqsanaan wadnaheyguna aad buu u garaacmayay waa sida ay Leila dareentay kadib markii ay qaadatay kaniinigii ugu horeeyay oo loo yaqaano Philibistrin isticmaalka dawadan ayaa markii ugu horeysay laga ogolaaday Mareykanka 3 sano ka hor haatan shirkad farmashi ayaa ku sameysay gudaha Masar Leila ma aha magaceeda saxda ah waa haweeney guri joog oo ku jirta da'da sodomeeyada waxay doorbidaysaa inay isqariso sida haween badan oo Masar ku nool oo kale ka hadalka dhibaatooyinka galmada iyo baahida la xiriirta wali waxa aad loogu xishooda ay ka tahay dalkaasi kadib ku dhawaad muddo 10 sano oo la qabay waxay go'aansatay inay dawadaasi tijaabiso Leila oo aan qabin wax dhibaato caafimaad ayaa soo iibsatay dawada iyadoo uusan dhakhtar u qorin tan oo dhaqan caadi ka ah dalka Masar halkaas oo dadka ay iska soo iibsadaan dawada qof farmashiyaha iibinaya waxa uu sheegay inaan kaniiniga qaato habeen walba muddo dhowr toddobaad waxa uu sheegay inuu san wax dhibaato lahayn ay tiri Leila saygayga iyo anaguba waxaan doonaynay inaan aragno waxa dhici doona hal mar baan isku daynay dib dambana umaan qaadan doono furiinka ayaa aad ugu badan dalka Masar warbaahinta gudaha qaarkood ayaana arintan ku sababeeyay inay tahay dhibaatooyin dhanka galmada ee lamaanayaasha u dhaxeeya shirkadda soo saarta daawada Philibistrin ayaa sheegtay in 10 haween ee Masar ku noolba uu 3 kamid ah dareenkooda hooseeyo balse tiradaasi waa qiyaas in tiro sax ah laga helo dalkaasi aad bay u adag tahay dawadan aad ba halkan loogu baahnaa waa horumar ayuu yiri Ashraf Al-Margathi oo wakiil ka ah shirkadan Margathi ayaa sheegay in dawada aysan wax dhib ah lahayn isla markaana ay waxtar u leedahay waxaana uu xusay in dawaqsanaanta ay suuli doonto muddo kadib balse farmashiyaal iyo dhaqaatiir kale kuma raacsana arintaasi
ugu dambeyntiina wiil dhalinyaro ah ayaa jacayl aawisan oo cabay ugu geeriyooday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka ka imaanaya deegaanka Biyo Cadde oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya inuu dhintay wiil dhalinyaro sun oo jacayl aawgi u cabay. wiilkan oo la oran jiray Maxamed Cali Maxamuud ahaana 20 jir ayaa geeriyooday gelinkii hore ee Jimcihii kadib markii uu fiidnimadii habeen uu cabay sun. dadaal lagu doonayay in lagu badbaadiyo wiilkan ayaa guuldareysay kadib markii la geeyay mid kamid ah xarumaha caafimaadka ee deegaanka Biyo Cadde. mid kamid ah dadka ku nool deegaanka Biyo Cadde ayaa sheegay in wiilkan uu dhintay suntan uu cabay loo diiday gabar deegaanka ku nool oo qoyskeeda ka doontay. wiilka waxa uu ahaa mid ka soo jeeda qoys sabool ah sida awgeedna qoyska uu gabadha ka doontay waxay ku xujeeyeen inuu u keeno xoolo uusan awoodin ayuu yiri Cali Jimcaale oo kamid ah dadka ku nool deegaanka Biyo Cadde. waa markii ugu horeysay arintan oo kale ay ka dhacday deegaanka Biyo Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. guud ahaan daawadayaal warbixinadii arrimaha bulshada la xiriiray ee aad kala socoteen ama aad ka daawanayseen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka iyo waliba warbixinada muhiimka u ah bulshada inuu halkan ku soo daawacno. waana mahadsantiin.